Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Caaqil Taj. Muuqaalkani waa qaybtii labaad oo aan ku sameynayno marka form validation. Qaybta hore waxaan ku soo sameynaa marka designka page-ka. Qaybtan hadda waxaan rabnaa inaan ku sameyno validationka. Waxaan isticmaali doonaa marka labadan library oo ka tirsan marka JavaScript-ga oo kala ah marka Yap iyo UseFormic. Maxaa loo isticmaalaa marka Yapka? Maxaana loo isticmaalaa UseFormic? waa maxay marka Yapku waa library ka tirsan marka JavaScript-ga kaasoo lagu sameeyo marka schema. Waxaad ku sameysan kartaa schema alla schemaha aad rabtay kaasoo maajgaray kara marka formka aad rabtid inaad validate garaysid. Shaqadiisa ugu weyn waa midaas. UseFormic ama Formic waa mid kamid ah marka library-yada ugu caansan ahna open source waxaana loo isticmaalaa marka formamka. Wuxuu leeyahay marka components iyo functions badan kaasoo ay ka sameyn karaan marka shaqo aad u fara badan formka. waxaad soo furataa marka terminal kale. waxaan rabnaa hadirtaan inaan install gareyno labada library oo aan isticmaali lahayn. Okay, waxaad qortaa marka npm install yap. Okay, intuu kasoo degay marka iska sug. Okay, waa soo degay. Haddana waxaan rabnaa inaan soo dejino UseFormic. asagana waxaad ku soo dejisaa marka commandigan. markaad install gareysid kadib waxaan sameynaynaa marka folder loo yaqaano model oo aan rabo marka schemaha inaan halkaas ku qoro. waxaan sameynayaa marka file oo aan ugu magac daray sign up schema. kadib waxaan soo import gareysanayaa marka library-ga aan ugu talagalay inaan ku qoro marka schema. Okay, markaad intaan sameysid formkeena kale wuxuu u baahan yahay 3 shayba in laga validate gareeyo. waa name-ka, email-ka iyo password-ka. Name-ka waxaa leenahay marka string waa inuu ahaada, required-na waa inuu ahaada. labadaas ayaan ka jeegareynaa. kadib email-ka imaam marka waxaa leenahay string waa inuu ahaada, required waa inuu noqdaa, email-na waa inuu ahaada oo calaamada adki iyo waxaas ayuu ka raadi doonaa marka. Okay, password-ka waa string, minimum character-kiisu waa 8 character ka yar hadduu soo geliso qofka loo sheego inuu password-kiisa oo 8 oonan ka yaraan karin. required-na inuu noqdo oo password empty inuuna soo dirin macnaha. Okay, schema sidan ayaan ku samaystay. hadda waxaan aadayaa marka formki ama sign up component-ga. Okay, hadirtaan marka waxaan soo import gareysanayaa marka UseFormic. kadib markaan soo import gareysto waxaan sheegayaa marka initial values-ka oo inputs-ka ay leeyihiin kulligoodu waa empty waa ugu horeen. validation schema ayaan leeyahay. validation schema ayuu u baahan yahay marka waxaan soo import gareysanayaa marka validation schema aan diyaarsanay. waxaan leenahay marka kan adoo u eegaysa validate garee. teeda kalena waxaa muhiim ah in initial values-ka meeshaad ku qortay magacyada saa u qortay iyo schemaha magacyadooda inay isku mid ahaadaan. Okay, midaasna iskoobe. kadib waxaan leenahay marka function kale oo wuxuu leeyahay marka submit. formka haddii lasoo diro meesha uu imaan lahaa waa marka asagana intaas markaad sameysid waxyaabo oo waxaa jira marka inaan ka isticmaalno aan u baahannahay oo leeyahay marka UseFormic. value-ga input-ka inaan heli karno kale. Okay, haddii submit la dhaho in la handle garey karo lasoo qaadi karo formka ayaan u baahannahay. waxaan kaloo u baahannahay marka wax loo yaqaano get field props kaasoo ah marka waa function kaasoo u shaqeynaysa marka waxyaabo badan inay isku qabato. tusaale ahaan kale markii inputs kala sameyn jiro kale waxaan loo baahnaa jiro kale in markii react iyo meelahan la joogo marka waxaa loo baahan yahay in initial values-ka la sheego ama value-ga loo sheego input-ka. hadduu unchanged dhaco unchanged in laga soo qaado ayuu u baahnaa jiray. Okay, waxyaabahaas oo dhan ayay waxay ku qaban karaa marka get field props. qaab kale oo input-ka loola tacaamulna waa jirtaa laakiin anaga waxaan maraynaa method-kan ayaa noo fudud koodkiisana yar yahay. kan ayaan isticmaali doonaa marka get field props. Okay, target-ka wuxuu sameynayaa marka haddii la taabto ayuu sheegayaa marka input-ka asagana. Okay, formki imaa marka formkan waxaan leenahay haddii submit lagu dhaho waxaad wacdaa marka function-kan. Okay, function-kan wuxuu sheegayaa marka asaga submit ayaa la sameeyey. Okay, input-ka imaa marka waxaad tirahdaa marka saddex kulan samee. waxaan rabnaa marka inaan magaciisna aan sheegno get field props magaciisna sheeg. Okay, kalaaskiisa imaa marka asagana waxaa leedahay haddii ay taabasho ay jirto waxaan iloow marka inaan soo import gareysto marka error hadduu jiro sideen ku ogaan lahayn ayaan u baahannahay. haddii marka waxaan inta ku sameeyay aan ku sheego waxaan weydiiyey ugu horreyn horta input-ka ma la taabtay oo target ma dhacay. Okay, target hadduu dhacay at same time error miyaa jiro. hadduu target-ka true yahay oo error-kana true yahay kadib waxaa leeyahay border-ka oo input-ka oo leeyahay marka red ka dhig. haddaan soo borooweyo kale waad aragtaan waa error ayaana haysto. errorkaasna waa Next.js 13 markii la keenay waa inaa kala sheegtaa marka client component-ga iyo server component-ga. line-ka ugu horeeya page-ka waxaan ku qoraynaa marka use client.
okay waxaan rajeynayaa marka errorka inuu na dayaadirtaan. okay waad aragtaan inputka ayaan taabanayaa marka asoo empty ahna waa ka tagaya, oo hadday waxaan dhahay inputkan waa required empty asoo lagama tagi karo. waad aragtaan asoo empty ayaan ka tagay, calaamad guduud ayuu saaray oo waxaa lagu haystaa waa taabatay asagoo empty ayaa ka tagtay. waa hadeertaan marka waxaan sameynaynaa errorka nagula haysto magaciisa in dadka loo soo bandhiga ayaan sameynaynaa. waxaad tiraahdaa marka haddii taajid jirto oo errorna oo jiro waxaad inaad siisaa marka taggan kaasuu ku qoran yahay marka errorka jiro messagekiis textiis waa rad small ka dhig marka error.fullname. hadeertaan aan tijaabinaynaa mar kale, waan taabanayaa waana ka tagayaa. wuxuu leeyahay marka fullnameku waa required oo asoo empty ma ka tagi kartid. lamada field kalena sidaan oo kale ayaan sameynayaa oo exactly meesha fullnameka la badbedelayaa. okay markii aad ku badashid marka dhamaantooda waxaan jeegareynaynaa markaad dirtaan formka. waad arki kartaan dhamaantooda waa errorka uu soo bandhigayaa, borderka guduud ayuu ka dhigayaa. okay markaana waxaan sameyn doonaa in markii formka submit la dhaho daatada laga qaado la gaarsiiyo marka methodka submitka. okay submitka imaa marka waxaan u sameynaynaa marka alert aan noogu soo bandhig ayaan leenahay marka valueska la soo diray. okay waan baroobeynayna markaad dirtaan submit dha marka wow waad aragtaan daatadina waa la soo qaaday, submit methodka ayaa la keenay iyadoo dhammaystiran. intaas marka waxaan kusoo gabagabeeyey muuqaalkeena aan ugu hadlayna marka sidee formka loo validate gareeyaa. muuqaalkan haddii aad wax ka faa'iiday marka like saar si dad badan uu sii gaaro. mahadsanid.